waxaan aad ugu faraxsanahay inay golaha wasiirada halkan jooga isla qaateen inaan loo dul qaadan musuqmaasuq in kulligeen inagoo wada jirna aan noqono koox jihaadka ugu horeysa ku qaada musuqmaasuqa go'aankaas inaan isla qaadanay waa ku mahadsantihiin waxaan rajaynayaa inuu dalka wax ka bedeli doono haddii aan ka dhamayno waana ka shaqayn doonaa anigu intaan ra'iisul wasaare ahay maalintii aan shaqada bilaabay ayaan idin sheegay la dagaalanka musuqmaasuqu inuu yahay ahmiyadda koowaad sababtu waxa ay tahay dalkan si la isugu keeno si wax looga qabto midnimada ummadda Soomaaliyeed si wax looga qabto horumarka si 15 milyan oo Soomaaliyeed ay u helaan nolosha ay xaq u leeyihiin laba aqbali karo qof iyo labo ama koox kooban inay u leexiso dariiqayda lama aqbali karo musuqmaasuq ina uu noqdo wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed oo hadda dhashay mustaqbalkooda inuu mugdi ka dhigo si taariikhda ay noo qorto mustaqbal ummadeena ay u yeelato waa laga maarmaan marka inaan musuqmaasuq wax ka qabanno